haddaba waxaa jirta arrinta kale ah in maxay ahayd inankan yara furinley aan isku dhacnay sababtaan isku dhacnayna dadku waxay isweydiinayaan laba nin ayaabay hawshani ka dhexaysa adi maxaa kusoo dhexgeliyey adi maxaa kaa galay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan kanaalka subscribe sar haddii aanu subscribe kuu saarnayn aad iyo aad ugu mahadsan tahay sida quruxda badan la iigu xidhan tahay waan maxaa sababay inaan muuqaalkii ka horreeyay aan ka saaro muuqaalkaas oo ku saabsanaa in aan kaga hadlayay hawsha bilow ilaa dhammaad wax kastaana sida ay ku dhaceen kolley intii daawatay way daawatay 5 kun oo qof baa daawaday muddo 5 saacadoodna uu yaala halkan labadii duurnimo ka soo dhigay waxaan ka qaaday 9kii habeenimo marka waxa uu yaalay baan oran karaa ilaa 8 saacadood buu yaalay ilaa 8 saacadood buu yaalay marka xitaa gelin dhameystiran maaha muuqaalka 5 kun oo wax daawaday 5 kun oo qof dad badan muu gaarin channelkan oo lagu xidhnaa muu ahayn ama dad badan ku xidhayn muu ahayn run ahaantii maxay ahayd waxaan ku leeyahay sababta haddaba igu kaliftay in aan ka saaro muuqaalkaas maxay ahayd hadda ayaan kuu sheegayay soo dhawow sababta aan uga saaray waxay ahayd horta qofka bini'aadamka khalad uu geli karaa waanu gafi karaa waxaan halkan aad iyo aad uga raali gelinaya walaashii raxmaroos oo aan leeyahay walaal qaali ka raali noqo muuqaalkii kugu saabsanaa adiga ee aan afkayga soo mariyay may qurux badnayn manay wanaagsanayn wax kastaana waxay ku qurux badan yihiin aamusnaanta waayo hore waxa loo yiri af daboolani waa dahab marka muuqaalka sababta aan uga saaray waxay ahayd raxmo ay ahayd waxa igu kalifay inaan ka saarana wax kala ma ahayn muuqaalku waxaan kaga sheekeynay bilow ilaa dhammaad wax kastana markaad sheegayso inaad xaqiiqada ka sheegto ayaa qurux badan markaas sheekadu mar haddii ay ku saabsanayd raxmo iyo Suleymaan Dheere inan laga qaaday in waxaas aad bay u falxun tahay aadna uma qurux badna inan ahaan sharafteedana uma qurux badna halayga raali ahaado cumaamadu way ga dhacday hadda laakiin halay soo celiyo raxmana waxaan leeyahay walaal qaali ka raali ah muuqaalkiina waan ka saaray kuma jiro sababta jirtay aan uga saarayna sababtaas un bay ahayd wax kalena ma ahayn sidoo kale waxaa jirtay horta sheekooyinka ma aragtay wax kasta markay dhacayaan wejiyo kala duwan ayay yeeshaan tusaale ahaan sheeko kasta oo bilaabanta ama weji bay ku dhamaata ama wejiyo kala duwan bay yeelataa iminka xanuunkan lagu leeyahay coronavirus waxa lagu leeyahay wejiyo kala duwan buu nagu soo food yeeshay haddana isagoo qaab kale abuu yimi waa isla xanuunkii laakiin isagoo qaab kale aan waxba laga qaban karin mar wax laga qabo mar basi markaas sheekadana waa sidaas oo kale oo halkii ka soo bilaabantay halkaas horta way isbedeshay sida ay isku bedeshay iyo hawsha isku bedeshayna wax kale maaha inanti raxmo horta wax dambe oo cid ka hadlaysa horta ma jirto cid ay ku magaceeda xitaa soo hadal qaadaysaana ma jirin balse laakiin sheekadu waxay isku digarogtay ama isku bedeshay inaanu aniyo furin la isqabano ama inaan kan yare furin la leeyahay aanu isqabano isqabashadana wuxuun baa sababay wax kastoo dhacana wuxuun baa sababa markaas la ajligeed wadoogeedina Suleymaan Dheere soo raali geliyay wadoogeedin in ma garanaysaay kuul ka laga raali geliyay laakiin haddana uu garan waayo qaadan waayo ninka raggiina waa ka lagu garto inuu isagu mar walba wax ka roonaado marka waxba aan hadal idinku daalin walaashii raxmo waxaan leeyahay walaal kugu khaldamay ka raali ahaw marka harta waxa la isweydiinaysaan baa laga yaabaa waa maxay sababta u raali gelinaya wuxuun bad ka sheekaysay maxaa qaldan maxaase ku jiray sababtaan hadda ayaan ku sheegaya qofka horta uu khaldami karaa khaladkiisana uu qaataa anuu khaldamay khaladkaygana waan qaadanaya haddaba khaladkaygu muxuu yahay baa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan waxa weeyaan wuxuu yahay markaan ka sheekeynay sheekada inanta raxmo ayaan ku lifaaqay iyaduna may jeclaysan inaan ku lifaaqo ama aan kaga hadlo waana ka raali gelinaya ka raali ahaan waan ku leeyahay muuqaalkuna san hore baydu kusoo sheegay wuxuu ku jiray 8 saacadood oo keliya haddaanu kaba yaraynba gelin xitaa buuxa ma gaadho markaas muuqaalka sababta aan uga saaray sababtaas ayaa ahayd marka waxaan leeyahay raxmo iyo dhammaan familigeedaba aad baan idinka raali gelinaya ka raali ahaada way dhici kartaa in aad adigu khalad u aragto way dhici kartaa inay dadku raadaan waxaan ka yarna ka sheekeynaya yani kan yar aniga malaha aniga marka laakiin ka raali ahaw baan ku leeyahay haddaba waxaa jirta arrinta kale ah in maxay ahayd inaan kan yara furinley aan isku dhacnay sababtaan isku dhacnayna dadku waxay isweydiinayaan laba nin ayaabay hawshani ka dhexaysa adi maxaa kusoo dhexgeliyey adi maxaa kaa galay insha allahu tacaala muuqaalkan muuqaal ku xiga ayaan kaga sheekeyn doonaa wax kastaana si ay ku dhaceen